waxaa jira dhalinyaro badan oo wax qorshe aan ka lahayn nolosha una baahan in la jiheeyo loona bidaansho wadada guusha taana waxay ku daboobi kartaa karti iyo dadaal joogto ah muuqaalkan waxaan kula wadaagayaa 7 qodob oo aad naftaada kor ugu qaadi karto dhan caqli iyo dhan jireedba magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaarig ku soo dhawaada muuqaalkan oo faahfaahsan qorshaheena koowaad waa inuu qofku go'aan wax ku ool qaato fahmana naftiisa wax uu ku fiican yahay iyo wax uu ku xun yahay 2 samayso hadafyo aad u wanaagsan kuna gaarsiin kara hadafkaaga weyn ee mustaqbalka 3 isku day inaad naftaada fahanto waqtina la qaadato sida uu ogaato meelaha bannaan ee u baahan inaad naftaada ka hormarisid 3 raadi wax adiga iyo bulshada ku anfacaya hana noqon qoftiisa oo ka fakara 5 isku kalsoonidu waa shayga ugu muhiimsan ee qofka noloshiisa hormarin kara kuna kalsoona wuxuu Ilaahay ku siiyay kuna mahadnaq 6 dhis jirkaaga waayo jirkooda la dhiso waa caafimaad qorshaheena ugu dambeeya wax akhrisku wuxuu koriyaa maankaaga iyo fikirkaaga waayo haddaad wax akhrisid wax badan ayaad ogaanaysaa asxaabay 7 qorshe haddaad ku dabaqdo ahdaaftaada mustaqbalka waa laba horaan inaad guul gaarayso nagula wadaag commentiga hoose waxa qorshayaashan ka faa'iiday waayo fikirkiina saliimka waa noo muhiim. Assalaamu calaykum.